Soomaali meel kastoo joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idinka soo salaamayaa dooramaan idinka soo salaamayaa waxaan idin leeyahay ilaahay meel kastoo joogtaan ha idinku nabad yeelo Soomaaliyeed. aafaadka jiriya cudurrada jiraan Allah idinka caafiyo, Allah idinka maarataana ilaaliyo. dhulkeennana ilaahay noo ilaaliyo, itaalka la maleeyina ilaahay noo ilaaliyo. ilaahay baa awood leh. ducada dabadeed waxa weeye Soomaaliyeed waad arkaysiin in badan baan waxaan ku celeeshaa meesha la raado xalane oo ay degan yihiin beesha gumaysigu. hadda waxa ka socda waad ogtiin. labadii nin ee hor fadhiyay Soomaaliya in doorasho laga qabto oo waliba la soo xereystay oo ayagu maartay xalna ku hayaan maanta oo aan loo ogolayn inay wixii ay maartaanay ummadani doonaysay ay yeelaan oo maartaanay adarkaysaan maanta waxa haysta dawladdii Soomaaliyeed dhinaca u dhaqaada ay kar laadahay iyo xaq loo qaado. markaan waxaan leeyahay beesha gumaysiga oo ugu horeeya ninka jimciyadda qurmo ka dhacay ka socdaa u leeyahay oo saan ogaaday asalkiisu oo maartaanay lug weyn ku leeyahay Kenya. hadday maartay baanankeeda ahayd iyo hadday shaqadeeda ahayd iyo hadday wax kale ahaydba, iyo ninka maartaanay isna ka soo jeeda nimanka la dhahay Yurubiyanka isku tagay ee gumaysan jiray wadamadeena oo ku hanjabay inuu Soomaaliya ka goynay lacagta Yurub. marjoogay ma ilaahay baa noo haya inaga lacag wadankeena inoo haya. ilaahay baa maartay gacantiisu buuxdaaye wuxuu yiri waxaan goosanaynaa lacagta Yurub aan goosanaynaa mar hadduna farmaajo ka tanaasuleyno ka tagaynin guriga ka xukuma wadanka hadduna ka tagaynin lacagtii waan goosanaynaa. waxa soo raaca kamareenka ee gaaban ee hadba dhinacuu doono isku jeedinaya. nimankaasi dhammaantood waxay u arkayaan inay la wareegaan doorashada Soomaaliya, iyagu la wareegaan teendhadii 74 aan ka dhisnay xalane ee weynayd ee mudulkayd ay gool dhigtaan oo taana deedna halkaasaan ku qabanaa yiraahdaan doorashadii oo odayaashan halkaas ku keenayna saasay leeyihiin. marka maadaama ay maartay ninka gaabana la James Wan awri maartay doorashada anaga qabanayna lacagtana ku bixinayna hoolkana anaga googlayna odayaashana anaga isku keenayna halkaas wax lagu dooranay dawladdii Soomaaliyeed marka waa ka kac weeyaan. aaway madaxweynaheennii, aaway baarlamaankii, aaway aqalkii kale ee baarlamaanka lagu sheegay odagiisii fallaagoobay, aaway maxay hadaanay ciidamadii maartay kumaankumka la dhisay xagee ku dambeeyeen. ma mar kale laga soo bilaabaya haddana 90kii iyo waqti ku dhow laga soo bilaabaya. taasi waanigi anigu idin 100 jeer ka hadlay beesha gumaysiga lugooyun bay meesha la joogtaa. waad ogeydeen gabadhii Soomaaliyeed ee magaceeda aad uma xafiidsanay almismeel oran jiray ee lagu dilay xalana iyadoo shir ka soo baxday ninkii albaabka agteeda joogay oo madaxa ka toogtay. waad ogtiin meeshaasi inaan Soomaali gali karaa jirin oo nimanka sangaruur la dhahday madmadoobi ay ku ilaaliyaan gaalada cadcad. labadii gaalun bay salaaynay oo kii cadda ayaa la ilaalinay, kii madoobana gaar buu ka hayaa. Soomaalina la iska ilaalinaya. markaas waxaad leedihiin oo afkiina ku badan tahay Soomaaliyeed saaxiibada Soomaaliya ee ma daneeyaasha maartay taageerayaasha Soomaaliya maxay iga taageerayaan? badaydii bay kalluunka ka dhameysteen, macdanteedii bay meel walba ka guranayaan naga dhameysteen, xoolaheennii bay maartaanay baabiyeen, dhirteennii baa maartaa ay shideen oo maartaanay rag u wakiisheen iyagu marka iyagu istusaya inay iyagu in col yihiin raggaas mana aha col iyagu waa la ogyahay. marka waxa weeye beeshaas xalna fadhida waad u taqaanaa idinku saaxiibada Soomaaliya annaan cadowga Soomaaliya u arkayo waa inay Soomaaliya ka qaadataa tallaabo. laakiin ma idin ogeyn Ilaahay subxaanahu wa leeyahay yaa ayuha alladina aamanuu laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وحوي إلهي وحنا ليهي إذا أن إذنك أهين مسلم كأهين إسلام أهين هكذا إننا لطليال يكو سرتنا تكون أمنتان يكو حقال ذي النقطة مركز إسلام نمضى أن شغلنا معيدا يتكدون إياه إسلام نمضى أن شغلنا إنه صومالي أما سيهاد أما سياسي النقطة أما متعلم نقطة أما وذاد النقطة أما معمستر النقطة أما وذيال النقطة إسلام نمضى أن شغلنا متى أي ماموران با مارتاني بيشاسي عدو إنه إلهي نوع عدي أفكار أي كسر بحيسو نعيب كين نعيبهين إلهينا لي وما تخفي صدورهم أكبر وحي قلبي يدين كو قرنيان باكسي وين إلى هذا سي سعودها الكاس سورة آل عمران وروح عن الله إلهي أنو توبت كان هورت الصومالي أو نمان كاس ودن كين هاي نوغب بحان والله الصومالي سديدي سال أركي معايو ما أنت نمان كاس نغيت كان تاسي الكاس أنكسو قبقبينيا أو وحوين نمان كاس أدو تقانان مارتاني بيش لحاد أما taageerayaasha Soomaaliya ama saaxiibada Soomaaliya cadawga Soomaaliya iyo gumaysiga haystawayaan talabaad in badan ba waxaan ka hadlay waxa la federaal wata maartaanay niman maarta jooga garowe ay ku hadaaqayeen anagu waan ka goosanaa Soomaaliya aan goosanaa ay leeyihiin marna waxaan idinku yiri waxa laga yaabaa niman maartan nimanka jooga maarta Puntland xukuma oo magacaanta loo shaaran jaani wax la yiraahdo ma garanayee inay uga dhow yihiin Soomaalinimada nimanka Soomaaliland waan goosana leeyahay inay Soomaalinimada uga dhow yihiin waa maanta soo baxday waxa weeyaan dadka reer Puntland ee dulman oo ay ugu sii horeeyaan gobolada maarataanay ay la yiraahdo Karkaar iyo maxaada Boosaaso ilaa Gardafu ilaa Raas Casayr ilaa maxaadaanay Carmo ilaa meel walba lagu dulmayo iyo ilaa maarad gaalkacyo ma waxaad aragtay odayaal si gaalkacyo la leeyahay waa shabaab la leeyahay oo iyagii maartan la daadfeenayo dadka dulman xaq bay ku leeyihiin dawladda xamar joogta waa in loo gurmadaa 100 jeer baan ku celiyay federaalkuna dawladda maanta lagu marmayo ee iman doonta waa inana federaal dambe nagu maamulin taana federaalkan kale ahay nimankii keensaday ee Tigreegaha way baabeen Keenyadii la shanaysay yadna way baxsatay Tigreeguna mar dambe ku soo noqon maayo Soomaaliya insha Allah taala fadalkiina halka Soomaaliya ka dhamaado waa cudure shacabka Soomaaliyeed dulahaan gurmad buu baahan yahay haduu maar ilaa Kismaayo ilaa iyo law yacdo dad Ilaahay yaqaan oo muslim ah oo u taliya oo iimaan leh baa loo baahan yahay maanta meel kasta Soomaaliya joogto dhibaato haysata halkaas maartay Puntland iyo madax la isku gelinaya iyo Soomaaliland dad la yiraahdo la isku leenaya oo laba askari oo wada ahaa oo maartay isku jinsiya oo salaadooda tukanaya halka isku leenayaan maxay isku leenayaan waa in loo gurmada la kala qabtaayo Soomaalinimadii la soo celiyaa waxa kale oo mucaaradka baarlamaanka dhex dhashay oo harayba u sheegtay ninkii feeraha weynaa Kenyaanka ahaa ee baarlamaanka Kenya ku jira siyaasiga wuxuu yiri 29 ayaan ku leenahay candidate oo dadka maartay baarlamaanka kamid ah oo members ayaan ku leenahay Kenya kuwiiba hadda waxa la leeyahay lacagtoodina imaaraadka soo shubaysa de waxa weey namada yareey maartay caloosha weynaatay ee ay maartaan xamar hadda ka hadlaya ee ka mid yahay ninka la yiraahdo maartay mahad salaad la yiraahdo iyo nin kale oo qaraabadeeda baa hayo isaguna falaagoobay ay ka mid yihiin yaan nimankana waxaan leeyahay adeer waxay idin qaban doontaa shilinka aad ka cunaysaan ummadda Soomaaliyeed ee qaadanaysaan mishaarka u qaadanaysaan ayaa Ilaahay idinku maartay intixaami doona oo aad cudurka ka wada qaadi doontaan oo musiibada ku noqon doona sababtoo ah ummad aad maartaan shilinkeedii cunaysiin oo cashuurteedii cunaysiin ayaad madaxweynaheedii iyo baarlamaankeedii iyo ciidankeedii iyo maartaan jiritaankeedii aad ka soo horjeedaan oo doonaysan inay Kenya iyo looga taliyo imaaraadka meel la yiraahdo dhul dhinta iyaga maartay baaba ah inaad hoos geysaan doonaysiin Ilaahay intaad ka cabsataan toobadkeena intay goor tahay oo wadanka aad iibinaysaan eed maartaan aad maartay iminka hadii la yiraahdo maartay laba bilood baa la kordhinaya iyo cabaadayaan maxay la cabaadayaan laba bilood maana 10 sanadood in la kordhiya fiican oo wadankan la dhiso oo idii wax dhisaysa saanka farmaajo kale loo daayo oo dhiso wadanka ayaa la doonaya kuwa baarlamaanka maartaan mucaaradka la sheeganaya falaagada ah ayaa iyagana lahayd wixii aad ka cunaysiin ummadani cudur bay ku noqon doonaan ciidamada Soomaaliyeed
oo maanta meel kasta ka halgamaya iyagana ducaan u diraynaa waxaan odhan lahaa soomaalida meel kasta ay joogto ciidamada soomaalida la caawiyo aan waxbaan odhan lahaa ha loo sameeyo sanduuq ciidamada soomaaliyeed loogu ururiyo lacag oo soomaalidu ay ururiso bal haddii waxaad ka warantaan haddaan inagu maarata soomaalida oo 1 milyan oo qof oo Soomaaliyeed hadday min $50 shubaan bal ka warrama min $50 day shubaan de 50 milyan bay noqoni ciidanka mishaar dhan bay u noqonaysaa ma lacag fiican bay u noqonaysaa kuwa tijaarta maanta ay ka mid yihiin kuwa isgaarsiinta leh ee 20 bilyan ku xisaabtamayay lacagtooda ama Mareykan baa iska leh mise Ingiriis baa leh mise dadka muslimka ee masaakiinta ee laga ururiyay in wax lagu qabta iyo xaqta maartaan qoliya isgaarsiimaha iyo xawaaladaha iyo ee maanta bilyanada ku xisaabtamaya kuwaasina ilaahay ka baqaano wadanka xaqiisa siiyaan ugu dambeyn waxa leeyahay doorka culimadu waanu ka muuqdaa ummadda doorka culimadu waxa la yiraahdaa af carabiga الملوك تحكم الناس والعلماء تحكم الملوك يعني مارتي بقرده iyo xukaamtu wax xukumaan dadka ay xukumaan culimaduna boqorada ay xukumaan qoradaas ciyaar maaha inma yakhsha Allah min ibadihi ulama culimadu hadii ilaahay oo kaliya ka baqayso oo ina madaxweyne ka baqayn oo ina gacanta hoorsanaynin oo ina maartay wax khaldan cunaynin waxay daacadu noqon karaan oo ay ka saari karaan ummadani dhibaatada ay ku jirto culimadu way ka saari kartaa culimaduna waa inay mid ahaataa kuwa jooga Boosaaso ilaa Kismaayo ilaa maarataanay halka aan ka hadlay Boorama jooga ilaa koone wayna culimadu mid ahaataa oo kelmadda la ilaaha illa Allah ay ku midoobaan wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum min ni'matihi ikhwana marka waxa weeyaan walaalnimada ilaahay ina siiyay nicmada uu nasiiyay inaan ummadda ku soo dabaalno oo wax ugu qaban ayaa naga doonaya culimadu intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay ilaahay ummadan Soomaaliyeed ha badbaadiyo dhibaatada lagu hayana ilaahay ka dulqaado kuwa halaaga Soomaaliyeed iyo iibka Soomaaliyeed la iibiyo oo badda Soomaaliyeed la iibiyo oo dhulka Soomaaliyeed la iibiyo oo macdanta Soomaaliyeed la gurto kuwa doonayana ilaahay hayna dhaafiyo dhamaantoodba ilaahay baa maartay qaadire ilaahayna dhaafiyo wabillahi